kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walbo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray aynu ku bilaabnay dalka Itoobiya. Getachew Reda afhayeenka TPLF ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay weeraro cusub ku qaadeen fadhiisimo ay ciidamada Tigray ku lahaayeen Gemkovolo oo ku taalla waqooyi galbeed ee Tigray una dhow magaalada Shiraro. Getachew oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi weerarkii dhowaan dhacay waa mid sii kordhinaysa gardarrada uu taliska Eritrea ku haya qowmiyadda Tigreega, waxaana loo arkaa mid aanan ixtiraamaynin sharciga caalamiga ah. Weerarku wuxuu si cad u muujinayaa sida ay ugu go'an tahay taliska Asmara in uu sii wado burburinta dadaal kasta oo nabadeed oo ka socda gobolka, ayuu yidhi. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada waa inay qaadaan tallaabooyin ay ku qasbi karto taliskani inuu ixtiraamo xeerarka asaasiga ah ee sharciga gudaha oo lagula xisaabtamo dembiyada uu galay. Getachew ayaa hadalkiisa kusoo gunaanaday jabhadda xoreynta Oromia ee Ola ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ba'an oo dhex maray iyaga iyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Afhayeenka jabhadda Oromia Oda Tarbi ayaa sheegay inay ciidamadooda guulo ka gaadheen dagaalo ka dhacay deegaano dhowr ah. Wuxuu sheegay afhayeenka Ola inay guulo weyn ka gaadheen dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka Arda oo ka tirsan degmada Guba ee bariga Hararge. Sidoo kale waxa uu sheegay inay qabsadeen xero ciidan oo ku taallay magaalada Cheka oo ka tirsan degmada Dara ee waqooyiga Shewa. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay afhayeenka ciidanka xoreynta Oromia Oda Tarbi inay ciidamadooda qabsadeen magaalada Minare oo ka tirsan degmada Meta ee galbeedka Shewa. Dhanka kale, dowladda Suudaan ayaa sheegtay inay qabteen 21 Itoobiyaan ah oo laga tahriibin lahaa magaalada Al-Qureysha ee gobolka Gedaref. 20 ka mid ah tahriibiyaashani waa gabdho oo da'dooda ka yar tahay 20 sano jir. Tahriibiyaashan ayaa ku sii jeeday Liibiya si ay ugu sii gudbaan Yurub. Madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki ayaa sheegay go'aanka ay ciidamada Itoobiya kaga baxeen gobolka Tigray inuu ahaa xeelad dib u gurasho ah balse lama filaan ahaa. Asias oo xalay waraysi dheer siiyey warbaahinta afka dowladda ku hadasho waxa uu waraysigiisu kaga hadlay doorka uu dalkiisu ku lahaa dagaalka Tigray, siyaasadda gobolka iyo arrimo caalami ah. Sii deynta Abiy Ahmed ku sii daayay maxaabiista siyaasadeed ee fallaagada TPLF uuna ku sheegay inuu ugu gol leeyahay dib u heshiisiin qaran inuu ugu gol xaaro. Waxaa sida oo kale Asias laga filayay inuu isna sii daayo maxaabiista siyaasadeed ee ugu xiran, taasoo niyad-jab xoogan ku abuurtay muwaadiniinta Eritrea iyo qurbo joogta dalkaasi oo la filayay Asias inuu qaadan doono go'aan la mid ah kan uu qaatay Abiy Ahmed. Dagaalka gobolka Tigray, Asias Afwerki oo waraysiga warbaahinta dowladda uu siiyey wax laga weydiiyey dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray, waxa uu ku dheeraaday dagaalkaasi waxa uu keenay iyo doorkii ay ku lahaayeen. Wuxuuna sheegay inay lama filaan ku noqotay kadisna ay ahayd inay ciidamada Itoobiya ay bishii Juun si fudud ugu baxeen deegaanka Tigray. Dowladda Itoobiyana xilliga ay ciidamadeedu ka soo baxayeen gobolka Tigray waxa ay sheegeen inay ciidamada ula soo baxeen si ay isku dhacyada loo joojiyo gargaarka bini'aadamnimadana shacabka gobolka Tigray loo gaarsiiyo. TPLF dhankooda waxa ay sheegeen ciidamada Abiy inay gobolka Tigray kaga baxeen markii dagaalka looga guuleystay. Madaxweyne Asias Afwerki oo 20 sano ka badan hogaaminaya dalka Eritrea wuxuuna sheegay ciidamadiisu inay galeen gobolka Tigray ee uu ku qasbay gantaalihi ay TPLF ku rideen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Eritrea. Wuxuuna sheegay TPLF inuu Eritrea ay ku soo rideen gantaalo ayna qorsheynayeen 100 bartilmaameed ee dalkaasi ku yaala inay duqeeyaan. Dagaalka Tigray waxa ay ugu qayb qaateenna ay ahayd inay isdifaacaan oo keliya. Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee caalamiga ah waxay ciidamada Eritrea ka qayb qaatay dagaalka gobolka Tigray u soo jeediyeen eedeymo ku saabsan inay ka geysteen faldambiyeedyo noqon kara dambiye dagaal sida dil, kufsi, xadgudubyo kale oo xuquuqda aadanaha la xiriira. Inkastoo Eritrea ay eedeymahaasi gaashaanka ku dhufatay, taasoo keentay inay dalal badan ay Asmara cadaadis ku saaraan inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigray. Afwerki oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay talisyadii dalka Itoobiya isaga dambeeyay sida Boqor Haile Selassie Mangiste iyo dowladdii u dambeysay ee TPLF EPRDF dhibka shacabka Eritrea lagu hayana uu socday 80 sano. Hase yeeshee qalalaasaha Itoobiya ka taagan ee ay dalkiisu indhaha ka qabsadeen. Itoobiya
oo aan xasilooni aanan helin nidaam dowladeed oo xasiloonidaasi suuragelin karo dowladdii timaadana ma ahan in aan isxagxaganno marka door ayaa nagaga aadan marka gacmaha kama laabanayno waxa Itoobiya ka socdo ayuu yiri warka kale ee madaxweynuhu wareysigiisa ku sheegay sanadihii u dambeeyay ee uu talada dalka Itoobiya hayay Abiy Ahmed inuu rajeynayay inay wax badan isbedelaan balse fallaagada TPLF iyo wadamada xulafada la ah oo uusan magac dhabin inay diideen isbedelka ka dhacay dalka Itoobiya isla markaana ay horiyeen dagaalka waqooyiga Itoobiya nidaamka federaalka madaxweyne Siyaas Afwerqi oo lagu yaqaan naqdinta nidaamka federaalka oo ay qaateen wadamada gobolka qaarkood gaar ahaan nidaamka ku salaysan qabiilka ayaa mar kale wareysigiisa ku soo hadal qaaday nidaamka federaaliga ah ee Itoobiya ka jira waa mid qabiil ku salaysan dhibka laga dhaxlayna waa kan dalka Itoobiya u horseeday qalalaasaha sanadihii u dambeeyay ee ka taagnaa wuxuuna sheegay nidaamka federaaliga qabiilka ku salaysan inuu yahay mid ay shacabka wadamadaasi ay doonayeen balse ay yihiin mid ay dabada ka riixayeen xoogaga shisheeye ee doonaya kala qaybsanaanta qowmiyadaha dalkaasi kuwada nool isagoo carabka ku dhuftay nidaamka dawliga ah ee u wanaagsan inuu yahay kan midnimada ku salaysan muwaadinimadana qofka isagoo aan loo eegin qabiilka ama qowmiyadda uu ka soo jeedo arrimaha gobolka madaxweyne Siyaas Afwerqi arrimaha gobolka mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay arrimaha ka socda wadamada gobolka sida Soomaaliya iyo Suudaan kala qaybsanaanta iyo dagaalada ka dhacayay Soomaaliya 30 sano ee u dambeeyay uu yahay mid walaac weyn ku abuuray Suudaan waxay hadda haysaa ayuu yiri wadadii ay Soomaaliya soo martay 30 sano ee u dambeeyay mid la mid ah arrimaha caalamiga ah Siyaas wareysigiisa waxa uu ku karbaashay dowladda Mareykanka ee uu ku sheegay inay doonayso inay mar walba waxa dunida ka dhacaya ay iyada oo kaliya xaliso iyada oo danaheeda gaarka ka dhex raadinayso Eritrea siyaasadeena uma hoggaansato go'aankii ahaa ee Mareykanka siyaasadii ka dhalatay waxay keentay muwaadiniinta dalka Eritrea inay la daalaa-dhacayaan cadaadiskii ay Washington dalkooda siyaabo kala duwan u saartay dagaaladii ay Asmara la gashay wadamada dariska la ahna waxa ay ahaayeen ayuu yiri kuwa ay soo maleegayeen madaxdii isaga dambeysay dalka Mareykanka sanadkii dhamaaday ee 2021 oo kaliya Mareykanku waxa uu Eritrea u saaray 2 cunaqabateyn ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi oo dhawaan booqday dalka Eritrea waxa uu cambaariyay cunaqabateynta Eritrea la saaray madaxweyne Siyaas oo soo hadal qaaday booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha waxa uu sheegay xiriirka istiraatiijiga ee labada dal u dhaxaysa inay haatan xoogeysatay lana jooga xilligii heshiisyadaasi la meermarin lahaa iminkana Soomaaliya waqti dheer ayay dib u dhacayeen doorashooyinka dad badan ayaa u arka in ay sababtu tahay khilaafka siyaasadeed oo aad u soo laabtay waxaana walaac badan dadku oo hore ugu muujiyeen xilliga ay doorashooyinka dhamaanayso oo aan la ogeyn shalay shirkii golaha wada tashiga qaran ee la soo gabagabeeyay ayaa lagu cadeeyay in 25 bisha soo socota ee Febraayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya la dhameystiro dalka Nigeria oo lagu dilay 200 oo qof gobolka Zamfara ee ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Nigeria ayaa kooxo hubeysan waxay ku dileen 200 oo qof iyagoo halkaasi ku qaaday weeraro isxigxigay waxaa la sameeyay iyadoo la duugay dad gaaraya ugu yaraan ilaa iyo 200 inta la og yahay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii lagu laayay dadka faraha badan ayaa u sheegay BBC-da in rag hubeysan kuwaas oo watay mootooyin xabado ay ku fureen dadka markii ay dhex marayeen tuulada ay dhibaatada ka dhacday weerarkani ayaa yimid kadib markii dowladda Nigeria ay hawada ka duqeysay qaar ka mid ah dagaalyahano ka tirsan kooxdani toddobaadkii tagay kooxdani ayaa weeraro ku qaadaysay gobolka Zamfara iyo gobolada kale ee ku xeeran sanado badan kooxdani ayaa dalka Nigeria waxaa loogu yaqaanaa bandits waxay leeyihiin nidaam u gooni ah oo ay ku jiraan kooxo dambiyaal ah kuwaas oo inta badan dhaca xoolaha waxa ay dalbadaan madax furasho iyagoo dila dhibanayaasha ay haystaan madaxweynaha Kazakhstan oo ku tilmaamay rabshadaha ka socda dalkiisa Afgembi madaxweynaha Kazakhstan Qasim Tokayev ayaa ku macneeyay isku dhacyadii lagu hoobtay ee dalkaasi ka dhacayay toddobaadyadii la soo dhaafay
Afgembi. Waxa uu sheegay hogaamiyayaasha militariga isbahaysiga kuwaasi oo ka socda dalal ka mid ahaan jiray midowga Suufiyaadkii ee burburay inay jiraan xarun laga hagayo qulqulutooyinkani, laakiin ma uusan carabaabin kuwa ka mas'uulka ah. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in Kazakhstan ay bartilmaameedsadeen haatan argagixiso caalami ah, isagoo intaa ku daray in Ruushka aanu weligii ogolaan doonin in dalkani ka dhaco kacdoon dadweyne maadaama ay isku gobol ku yaalaan. Ciidamo ka socda Ruushka iyo dalal kale ayaa haatan ku sugan Kazakhstan si ay u soo celiyaan kala dambeynta. Dibadbaxyada ayaa markii hore waxa ay ka dhasheen sicirka shidaalka oo kor loo qaaday, hase yeeshee markii dambe waxay isku bedeleen qalalaaso, taasoo aanay dalkani soo marin 30kii sane u dambeeyey. Tiro dad ah ayaa dhintay iyadoo ay ku jiraan 16 ka mid ah ciidanka ammaanka.